Buuggan 1 minute manager-ka wuxuu ka sheekeynayaa maamule ay ku qaadato wax walba hal daqiiqo isla markaana natiijo aad u weyn ka helo. Ma rabtaa inaad noqotid maamule wax walba daqiiqad ay ku qaadato? Haddii jawaabtaadu ha tahay, muuqaalka dhammayso ilaa dhamaadka. السلام عليكم وارين السلام دمانتين كسو دواada mar kale muuqaal cusub isku soo noqod wanaagsan hadii ay tahay markaad kugu horeysay channelkan kusoo dhawow channelkan subscribe saaro muuqaalkana like saar asxaabtaada danaysa muuqaaladana la sii wadaag muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay buuggan la yiraahdo 1 minute manager waa buug ay soo saareen laba nin oo la yiraahdo Ken Blanchard iyo Spencer Johnson buuggan 1 minute manager-ka wuxuu ka sheekeynayaa maamule ay ku qaadato wax walba hal daqiiqo isla markaana natiijo aad u weyn ka helo marka ugu horeyso in wax la maamulo oo hal daqiiqana lagu bixiyo waxa ka dambeeyay 3 sir oo ah guusha farsamadan 1 minute manager-ka la yiraahdo waa 3 agab oo midba ay qaadanayso 60 second oo u dhiganta hal daqiiqo mid ugu horeyso waa inaad goal set gareysataa ama setting goals dadka shaqaalahaaga ah ama dadka ku shaqeeya hadii aad maamulo tahay shaqaalahaaga qofkii waxaad siinaysaa ugu yaraan 3 ilaa 6 sida buugga lagu qoray ama tusaale ahaan iska wadahba 3 shaqo ayaad u dhiibaysaa qofkii 3 shaqo marka aad u dhiibsid qofkii 3 shaqo waad u qeexaysaa wax walba oo laga rabo qofkan mas'uuliyadiisa waxa ay tahay waad u qeexaysaa isla markaana waxa u sheegaysaa in aad la socon doontid sida uu wax u wado isla markaana wixii uu hagaajiyo aad ku amaani doontid wixii uu qaldana aad ku dhaliili doontid in qofkan wixii uu sameeyay aad dib ugu laabato ama aad review gareysidna waa inay qaadataa hal daqiiqo iyo wax ka yar isla sidoo kale goolasha aad set gareynaysid oo qofkan shaqada aad u dhiibaysid qaabka aad ugu sharaxayso qofkan waa inaysan noqonin wax aad u badan waa inaad ku soo koobtaa 250 eray sida buugga lagu sheegay 250 eray wax la mid ah ayaad ku soo koobaysaa qaabka aad wax ugu sharaxayso qofkan waxa leedahay waxaan ayaa laga rabaa xilligaas natiijada noocan ayaan rabaa inaad gaartid hadii aad keeni weydid ama sidii la rabo wax u qaban weydo ama wax aad halayso waa kugu dhaleeshaadana waa ku sheegaa hadii aad wax wanaagsan sameysidna waa kugu amaanaya markii qofkii aad u sheegto wixii laga rabay marka waa goolashana mar walba gool laga hadlayo waa target waa in hadaf uu jiro wax aad hiigsanaysid company-ga ama maamulaysid hadaf ayuu leeyahay oo aad manager-ka u tahay hadafkaasna waa in la gaaro si hadafkaas loo gaaro qofka shaqaalaha ahaa waad u sharaxday hadafka la rabo in la gaaro maxaa xigo labada sir oo xigto waxay tahay in markii qofkan wax wanaagsan uu sameeyo aad ku amaantid taasna waxay tahay 1 minute praising wax la yiraahdo oo buugga lagu sheegay waana hal daqiiqo oo amaan ah inaan qofkii aad amaantid hal daqiiqo adigoo ku soo koobay waxaad amaanaysaa isla markii uu wax wanaagsan sameeyay qofkii lama sugaysid xilli kale isla waqtigaas asaga ah oo wax wanaagsan uu sameeyay ayaad qofkii amaanaysaa tusaale waad la fiirsanaysaa qofkii wixii wanaagsan asagoo sameynaya ayaad qabanaysaa waxa leedahay shaqo wanaagsan ayaad haysaa wixii uu saxay ayaad u sheegaysaa isla markaasna waxaad u sheegaysaa waxa aad dareemaysid ama dareenkaaga ku aadan waxaan uu wanaajiyay tusaale manager-kiisa tahay waxa leedahay waa ku faraxsanahay waxaan wanaagsan ee aad qabatay waan kugu dhiirigelinayaa halkan ka sii wad gacanta ayaa qabanaysaa madaxana waa u salaaxaysaa waan ku dhiirigelinaysaa si wax ka sii wanaagsan oo u sii qabto taasna waxay keenaysaa horumarka company-ga uu gaari lahaa mid xigta waxay tahay 1 minute reprimand wax la yiraahdo oo ah in hal daqiiqo qof aad ku dhaliishid tusaale markii uu wax uu qaldo ama wax sida la rabay uu u sameyn waayo hal daqiiqo ayaad qaadanaysaa inaad dhaliishid dhaliishaada waa inay noqotaa mid isla markii ah oo aadan xilli kale la sugin tusaale qofka bishii hore wuxuu qalday in hadda ku dhaliisho looma baahno markaas ayada ah wixii uu qalday aad ku dhaliilaysaa waxa leedahay waxaan ayaad qaladay waxaad u sheegaysaa sida aad dareemaysid ee aan waxaan aad ka dareemaysid la qalday waxa leedahay waan ka xumahay waxaan sidii la rabay u maadan sameeyay marka 1 minute reprimand-iga ama eedeynta qofka ama qofkii aad dhaliisha aad u sheegaysid laba qayb waa laba half ugu horeeya wixii uu qalday ayaad ku canaananaysaa ama aad u sheegaysaa qaladka uu sameeyay adigoo ka xun inaad ka xun tahayna aad u muujinaysid markii qofka taas aad u sheegtid halfkii hore ee dhaliisha markii ay sidaas tahay halfka dambe dhaliisha qofkii waa inaad niyad u dhistaa oo aad dhahdid waxaan wax ka wanaagsan ayaad sameyn kartaa
waa kugu kalsoonahay waana ogahay inaad shaqadan shaqo ka weyn baa qaban kartid kambanigana aad ayuu kugu faraxsan yahay marka waxaad samaysaa dadaalkaaga halkan kasii muuji sidaana wax ka bedel sidaas wax u sax waad dhaliishay isla markii haddana waad dhiirigelisay si uu wax u sameeyo kaliya lama rabo negative oo qofka inaad niyad jabisid oo aad dhaliil kaliya aad u sheegtid looma baahna shaqaalaha taas way niyad jabin kartaa runtii saas darteedna dhaliisha lama rabo inay fogaato oo ay noqoto wax dheer oo maanta dhan qofkii inaad wax hal wax uu haleeyay inaad maanta oo idil aad ku haysatid oo aad qofkii aad ku dhaliishid waqti kooban ayay leedahay hal daqiiqo waa ka badanin u sheeg wixii uu qalday ku dhiirigeli inuu wax wanaagsan sameeyo kana sii soco haddii aan isla fiirino marka buugga qaybtiisa ugu dambeysa wuxuu ku sharaxayaa game planka ama qorshaha oo idil ayuu kusoo koobaya hal sawir oo ah qaabkii wax loo maamuli lahaa hal daqiiqo oo waqtigaada kamid adigoo bixinaya wuxuuna sheegayaa marka ugu horeysa inaad bilow aad samaysid oo wixii aad bilowd waxaa ku bilaabaysaa inaad goolal cusub aad samaysatid setting new goals qaybta kalena waa in aad review garaysid oo wixii la sameeyey aad dib u milicsatid wixii khaldan iyo wixii saxan saad u kala aragtid sidoo kale markii aad goolasha aad samaysid oo 1 minute goals aad samaysid hal daqiiqo goolashaada xataa inay bataan looma baahna sidaa sheegnay waa in 250 eray ay kusoo koobnaadaan 1 minute goalka markii aad samaysid laba qayb ayay noqonaysaa in goalkii la achieve gareeyo oo la gaaro hadafkii loo socday iyo sidoo kale inay wax laabaan oo goalkii la gaari waayo haddii goalkii sidii la rabay loo gaaro waa guul ama win sidii ay noqotaba haddii la gaari waayana waa khasaaro oo meesha waxaa ka imaanaya loss ayaa imaanaya haddii markii guul ay imaado meeshii waa in horey looga sii socdaa waxaad horey ugu sii soconaysaa inaad qofkii wixii wanaagsan uu sameeyay aad ku amaantid dhanka kale haddii wixii uu qalday ay jiraanna wixii uu qalday aad ku dhaliishid oo aad dhahdid waxaan aad samaysay sidee marka wax u amaanaysaa sidoo kale sidee wax u dhaliilaysaa waxa u dhaliilaysaa waxa wax u amaanaysaa waxna u dhaliilaysaa kaliya waxaad taagad garaysanaysaa shaqadii la qabtay ayaad taagad garaysanaysaa qofka shakhsiyadiisa wax kama sheegaysid kaliya qaabka wax loo qabtay ayaad dhaliilaysaa ma ahan qofka shakhsiyadiisa saas darteed waa inaad markiiba hadday noqoto amaan ama dhaliilba amaanta haddii aan ku hormarno waa inaad markiiba qofkii aad amaantid wixii uu saxay ee wanaagsanaa isla markaasna aad wixii specific ka dhigtid oo aad wixii aad si sax aad u qeexdid wixii uu sameeyay waxaan oo sax ayaad samaysay si lamid ah waxaad u sheegaysaa waxa adiga aad dareemaysid ee ku aadan arintan uu saxay sidoo kalena waxaa ku dhiirigelinaysaa shaqada wanaagsan ee uu qabtay waxaana dhahaysaa horey oga sii wad shaqadan iyo shaqo ka badanba waan kaa filaynaa horey usii soco kuna dhiirigeli adigoo gacanta qabanaya madaxana u salaaxaya taabashada waa mid ka mid ah ficilada ugu wanaagsan ee qofka dhiirigelinaya haddii guusha ay halkaas noqotay waxaa uga sii gudbaysaa inaad guulal kale aad sii qorshaysatid yacni hore looga sii soconaya markii la guuleysto laakiin dhanka kale oo ah haddii wax laabaan oo khasaare ay imaado qofkii waxaad u sheegaysaa wixii uu haleeyay isla markii ayada ah sidoo kale waad qeexaysaa waxaan ayaad qaladay ayaa leedahay mar walbana ogsoonow waxa aad dhaliilaysid ma ahan qofka shakhsiyadiisa waa shaqada la qabtay sida ay tahay u sheeg sida aad dareemaysid inaad ka xun tahay arrintan dareensii in aad ka xun tahay arrinta uu qalday si lamid ahna dhiirigeli oo gacanta qaba madaxan u salaax oo waxaad dhahdaa shaqadan shaqo ka wanaagsan ayaad qaban kartaa waa kugu kalsoonahay waana ogahay inaad wax ka wanaagsan aad qaban kartid waxaan kaa filayaa wax kasii wanaagsan horeyna usii soco waad dhiirigelinaysaa ugu dambeynta waxaadna ku laabanaysaa bilowgii oo ah in haddana wixii qofkii uu dib kasoo bilaabo markiina uu saxo wixii ayada ah buugga 1 minute managerka oo ah maamulidda hal daqiiqo oo waqtigaada kamid adigoo bixinaya intaas ayuu ku kooban yahay runtii buug waa buug aad u fiican wuxuuna aad u quseeyaa dadka managerada ah oo raba inay wax maamulaan fariimaha buuggan ku qoran haddii aan soo xigana mid kamid ah ama koodyaasha buuggan ku qoran mid kamid oo aad u wanaagsan ayaa jiro oo uu leeyahay qoraaga waqtigii ugu fiican ee aan bixiyo waa midka aan dadka invest garaysto ama dadka aan maalgashto wuxuu leeyahay the best minute I spend is the one I invest in people waqtigeyga daqiiqada ugu wanaagsan ee aan bixiyo waa mid dadka aan maalgashto runtii in dadka la maalgashtana waa wax aad u wanaagsan oo hore ayaa loo yiri wax la maalgashto dadka ayaa u wanaagsan dadkaaga maalgasho shaqaalahaaga dhiirigeli wixii ay qaldaan wixii ay saxan ku amaan wixii ay qaldaanna ku dhaliil oo markiiba dhaliishaada u sheeg isla markaasna dhiirigeli oo dhiirigelinka sii qaad laakiin looma baahna in dhaliil bas ay noqoto wax walba markaas wax hore usii soconaya ma jiraan saan filay buuggan laba qof baa kula talinaya 20 jir rabo inuu kusoo biiro maamulidda oo rabo inuu wax maamulo
buuggan waa inuu akhristaa oo aad ayuu u anfacayaa. sidoo kale 39 jir wax maamulo laakiin ay ka maqan tahay inuu shaqaalihiisa dhiirigeliyo wixii ay saxaan uu ku dhiirigeliyo. lama rabo kaliya negative sababtoo dadka badanaa wax maamulo waxay beegsadaan kaliya xilliga qofka uu wax uu khaldo oo kaliya kuma dhiirigeliyaan wax uu wanaagsan uu sameeyo. sidoo kalena qaabka ay wax u dhaliilaan inay wax ka qaldan ayaa macquul ah. muuqaalka taas ayuu ku egyahay. haddii inta aad soo gaartay waa ku mahadsantahay daawashada muuqaalka like saar, asxaabtaada la sii wadaag. channelka haddii aadan weli subscribe saaranin subscribe saaro, gambaleelkana furo si fariinta ay kuu soo gaarto mar walba. intaan ku kulmayno muuqaalka xiga waxaan kaga tegayaa 1 minute manager.